qisadii igu cajiibka waxay qisadii Talyaaniga nagu qabsatay naag Soomaaliyeed ah oo 4 nin qabtamay mise iyagoo ay qabaan 4 ay qabaan mid Denmark degan mid London degan iyo 2 Talyaaniga degan bal habaar qabto sidee bay u kala ilaalin jirtay markii aanu wareysanayna waxaan ogaanay inay sanado sidaa ku waday xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay xaggana ay ka dhureysay lacagtu dhinac walba kaga socotay raggana ay kala farsamayn jirtay ilaahay muxuu qadaray markuu ilaahay wax fashilinayo oo agooni labadii baa diyaarad isugu yimi kii Denmark ka soo duulay iyo kii London ka soo duulay ويس ورستينون وريا حاجات كل صعطايو حاجات كل صعطايو نقول واحد ده قبل يدي بكل صعطايو قرب ماشي كل قبايو وكانوا متكلنا هل كان دنمارك بمدي وجو أصلا كان مد لندن وجو أصلا تانينا وقرصون تي جور قرين تجور نب كاستيل هذا سيد يقول ده فديان وبتلافن بس صادعي وأنا سنع فديان تلفونكي waxa ka soo booday telefoonada imka smartka ah bay ahaayeen dan ka hadal ma aha kii Sheekh Cabdirashiid sheegay ma ku ilaab salaaxa qof markuu soo hadlo waxa soo booday sawirkiisa sawmaha sawirkeedii waa soo booday bul kii kalena ishiisa way ku dhacday warstay wax u jiraan buu yaa gabadhan kula soo hadlaysa waa xaaskaygii xaaskaagii baa haa yaana waa xaaskaygii buu war maxaad ku hadlaysaa soo xaaskaagii maaha haa yaana waa xaaskaygii wuxuu soo saaray sawirkiisna sawirkii buu soo saaray waa la isdhinac dhigay waa isku sawirkii arrintii baa naloo keenay bal naagtu dhiiranaanteeda may oranin arrintu waa labadan uune laba kala jirabeed yaa kanaan ilmaha u hayo waa mid oo magaalo kale oo Milaan la yiraahdo jooga ka kalena magaalo Heblaayo jooga haye wal isugu wada yeera wixii baan isugu wada yeernay bal waanu wareysanay marka awal waxaanu maqri jirnay un rag wax qarqariye fajicishada noogu weyneed bay ahayd naag 4 ay qabaan naasida u kala ilaalin jirtay habaar qabtooy waxa jira kan waqti gaaran u yeera kan waqti gaaran u yeera labadan magaalada joogno waqti gaaran aan shaqadiisa u qabta sidaasaan ku waday beed sidaasaan ku waday ha markaasaan wareysanay midba taariikhdu guursaday dib baan u wareysanay hadda iyo hor leh yaa ala kulli xaal markii dambe kii u horeeyay baan adeerka adun ba meherkaagu sax yahay war idinkuna ka huleela na adiguna Ilaahay u toobadkeen